السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد أخيار تشرفت مدن كنال كينا عافيماتك دريالك عافيماتك إنه ما أنت كسر قادنا إنه رجع أي ديلوداي سيجادو. طبعا مركا إنه مقالو كلمة سيجو أما رجع ديلوداي وحلقة يا باب الشدة قاركود إنه مركا دكت تاجان أما قفكو وكنا حو ويلاحظوا موقف سمع يا بصر يا عقلي يا قراد له أيا وحا وصمينا يا فعل كاعدك وفوشحن وما باهنين إنه definition كذا عادو قيحنو ووح انت بدل عان اسكا أما برشادو بدي أي تقانو حتى بس كستبا إنو نراهنه لكن وحنو إنكو إيغينا إنو كيغينا دينعا إمباكتيغا يابورتو وصامين تيرات كاي كاغاتك ترقا runtii ficilka noocaas ku dhaca marka laga yimaado walwalka walbahaarka daalka iyo tabcaanka aadka u faraha badan ay ka dhaxlaan ayaa halista caafimaad ee runtii ay ka dhaxlaan waxa kamida aragga indhaha daciifa gabiyahaanba unugyada qaada dhinaca sightinka iyo araggu waa kuwa la xiriira qofka awoodda uu leeyahay ama se immunkiisu intensiveka uu yahay iyo difaaca jirku hadba qaabka uu tayeysan yahay ee uu xoogan yahay ee marka uu tayo u leeyahay ay ku xidhan yihiin aragga indhuhu qaabka uu yahayna inuu daciif yahay iyo araggaagu inuu fiican yahay iyo aragga gaaban iyo aragga dheer labaduba inay ku wacan yihiin sida laajigeed haddaba haddaad isticmaasho caadadan aadka u fooshaxun oo waliba xilli kasta iyo waqti kasta aad ahaato mid psychotic ah ama adapted aad ahaato qof la qabsaday waxa laga dhaxlaa inay unugyadaas ay daciifaan hormoonada aadka u muhiimka ah ee ka soo baxaya ama runtii dheecaanka ka imanaya qayb laxaad ka qaadanaya ee progesterone hormoonkaas iyo kuwa kale ee androgeniska ah ee runtii iyaguna qaybta lixaad ka qaata taranka ninka dhamaantoodba waxay ku takhaluqaan awoodda iyo difaaca jirkaaga ama waxa loo yaqaan immune intensiviska iyo immune deficiency inuu kugu dhaco oo difaacaagu uu daciifo sida laajigeed walaalka imaqlaya ee dhageysanaya waxaan aad ugu talinayaa arrintan haddaad caadaysato oo runtii aynu xilliyo badan ka hadli doono kuwa kalena aynu ka hadalnay marka laga yimaado xayndaabka adag ee dhinaca nolosha kaaga imanaya iyo walwalka iyo fashilaada fara badan haddana arrintan baa waxay tahay mid kugu soo degdegaysa sida laajigeed inaad faraha ka qaato oo qaabka koowaad aad ku daynaysaa haata cabsi alla ilaahay dartii inaad uga tagto qodobka labaad u daynayso caafimaadkaaga inaad uga tagto qodobka saddexaad u daynayso dhaayaha indhaha ee aad ku arkaysa makhluuqaadka ilaahay abuuray quruxda adduunka iyo waxyaabaha inta badan farxad geliya ibni aadanka qofka farxadiisu waa indhaha muuqaalkiisa qofka ilaahay nagama duuro qofka indhuhu ka dhacaan ama indhuhu ay ka daciifaan waxa uu waayaa farxadda adduunka waayo qofku waxa uu ku farxo meesha uu ku arkaa waa indhaha degaha inta badan lagama farxo laakiin qofku marka uu arko xataa afkaan hadal ayuu qofku farxayaa sida laajigeed inay degdeg u joojiso qofka ficilka ku dhacay cod dheer baynu ugu sheegaynaa inaad joojiso isla markaana aad ka qoomamayso ayaanu kuula talinaynaa arrintan noocaas qofka aan ku dhicinina waa sharfan yahay ama qofka aan samaynin dabcan waxaanu heli doonaa in waxa uu kaydsado runtii badan fici doonaan intaas ayaynu kaga tagaynaa la sii wadaaga oo u sheer gareeya bulshada kale arrintaana inay runtii aad uga fogaano caafimaad ahaan iyo dhaqan ahaanba wuxuu noo salaamu calaykum